بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو هذا جنالكينا قعم فرن قلب صافية وإذن سو دوينا الصومالي وين وان إذن سلاماي ملبا جوكتان مالي وناكسن. maanta waxaa ka hadlaynaa sharciga amba qaanuunka heybada, inaa heybad lahaatid ama lagaa heybeysto. anagoo dhan waa jecelnaa inaan noqono dad heybad leh, laakiin heybadii howl weyn ma ahan. haddaa si u fiirisid wax sahlan waay. dadka qaar se way la adagtaa, way ku adag tahay. waxaa umaleynaysaa inay adeeg ay ula tahay, laakiin wax aad u sahlan waay inaad heybad lahaatid. wax aad u sahlan waay. noloshan sideeda waxaa waaye sida adiga aad ka dhigtid waay. dabcigaaga meesha qaldan mar walba oo daciifka ah ku tahay sax ay kordhi, meesha quwadda aad ku leedahayna kor u qaad. koob, inaad joojisid hadalka badan oo macnaha laheyd inaad joojisid. dadka qaar ayagoon hadlin ayaa waxaa arkaysaa markay la kulmaan dad ay jecel yihiin inay qalbigooda furayaan oo ay aad u hadlayaan, ay aad u sheekeynayaan. qurux waay. laakiin hadalka badan waxaa ka imaanayo inaad qalbigaaga u furto qofka aad jeceshaa. qurux waay. laakiin hadalka badan qaladaadkiisa badnaanayo. isbar. xataa haddaad tahay qof hadal badan, hadda isbar inaad aamustid oo tababaratid. isbar. qofka keligiis nool horta way u sahlan tahay, mar walba way u sahlan tahay. oo kelinimada jecel way u sahlan tahay, laakiin isaga laftirkiisa mararka qaar dadka uu jecel yahay markuu arko inuu qalbigiisa furo aad u hadlaa laga yaabo. marka jooji hadalka badan. inaad hadalkaaga aad ka hadashid wixii muhiim ah bas. markii wax lagu weydiiyo bas wixii muhiim ah oo u baahan inaad ka hadashid ka hadal. haddaanay u baahnayn oo hadalka uu yahay hadal macno la-aan ah, inaad iska aamusta fiican. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii ilaahay rumeeye maxaa iimaankiisan uu run yahay waa inuu maxay ahayd u aamusaa ama u kheyr ku hadla. waa inuu aamusaa qofkii ama uu kheyr ku hadla. tan labaad, qosolka badan. haddaad tahay qof aad u qosol badan haddaad tahay, ayadan waxaa qiimahaaga hoos u dhacaya oo maanta o dhan wax macan aan leen qaxdahaayo. waxaa noqonaysaa qof la fududeysto, waxaa noqonaysaa qof la sahashado. marka haddaa rabtid inaad heybad yeelatid, hadal badnaanin, hana qosol badnaanin. bini aadan aad tahay, dareenkaaga inaad cabirtid caadi waaye, laakiin waxaa la diidayaa qosolka macno la-aanta ayaa la diidayaa. haddaa rabtid inaad noqotid qof heybad laga heybeysto, yani dadka waa aragti sooma qofkaas waxaa waaye qof aan fududeen. qofna waxaa waaye qof fudeed oo laleeyahay heblaayo le maho, hebel le maho laleeyahay. ha noqonin qof mar walbo waxaa waaye fudud oo la heli karo. heblaayo iraac haye, hebelow iraac haye, oo adiga danba aan lahayn. ha noqonin qof mar walba fudud oo meelha iska yayaalo oo waqti aan lahayn oo waqtigiisa aan miisaaneyn. ha noqon waqtigaaga qiima ku lahaado. waxyaabaha qofka heybadiisa kor u qaado waxaa ka mid ah arrimahaaga inay ku qarsoonaadaan oo shib aa ku dhamaysatid. waxaa qabtid adaa qabtid. soo adduunka waxaa waaye waa aragti sooma, waa aragtay wax aa qabtid. markaa dad la wadaagtid inaanay ku hirgeleynin, inaa aamusta ayaa kuu qurux badan. haddii dhib aa qabtay oo dad aad la wadaagtay waa aragtay inaan lagu caawinin oo ilaahay subxaana watacaala keliya uu ku caawinayo, soo inaa aamustid ayaa kuu qurux badan. arrimahaaga marka ay yihiin wax kuu qarsoon, qof walba wuxuu faduul ku jiraa inuu ku ogaado maxay qabatay, muxuu qabtay, intuu aaday, muxuu sameeyaa, maxay sameysaa. dadka hareerahaaga ee mar walba waxaa waaye xusul duubay ugu jirayaan inay ogaadaan. waayo laguma oga. gurigaaga gashaa, gurigaaga ka baxdaa, danahaaga u baxdaa. haddaa kulantaan assalaamu calaykum fiicantiin bas maasha allah tabaaraka allah. soo qofna inuusan ogaanin oo inaan sirtaada la helin wax aad u qurux badan waay. sirahaaga inaan la helin. sirahaaga maxaa waaye sir oo khataroo lagugu dilaayo maaha, laakiin noloshaada qaaska inay qaas ku ahaato sir waay. meesha aadaysid, shaqadaada, waxaa cunaysid, waxaas oo dhan inay sir ku ahaadaan. maasha allah tabaaraka allah. dadka waxay bilaabayaan inay raadiyaan ama ay isku dayaan inay ogaadaan adiga maxay tahay qofkan, xaguu ka shaqeeyaa, xaguu galaa, xaguu ka baxaa, muxuu yahay, yaa dhalay, yaa la dhashay.
waxaa bilaabanaya faduul bini aadanka dabeecadda bashariyada waxaa waaye inay jecel yihiin waxa ka qarsoon oo mar walba ay raadiyaan waxa ka qarsoon. Saas daraadeed waxaa arkaysaa dad mar walba ku mashquulsan inay ogaadaan waxaan maxaa waaye, asbaabtan maxaa waaye, oo waxyaabo qaas oo qarsoon inay raadiyaan jecel ay jiraan. marka waxaaga ha kuu qarsoonaadaan haddaa rabtid inaad tahay qof, inaad noqotid qof heybad leh. tan ugu muhiimsan, qofka bini aadanka heybadiisa kor u qaadayso. weligaa qof bini aadan ha baryin, waxna ha weydiin. weydiinta isduleynta waxba ha weydiin, hana u dacwoonin. dacwada markaa bilaawdid inaad dadka ka dacwootid waxaa waaye qiimahaaga meeshaas uu ku dhumaaya. si walba ood qiim u lahayd maalintaad bini aadan uu ku ogaado inaad jaban tahay, in duruuf ay ku hayso oo isaga aad u dacwootay, maalintaas heybadaadii hoos ay noqonaysaa. duruuf way imaan kartaa, haa, daarul imtixaan waa soomaha dunida, laakiin raadi jidkii lagu bixi lahaa adoon tuugtamin, adoo baryootamin. kaba soo qaad dadkii u dacwootay, yaa u dacwootay, waxaad u dacwoonaysaa makhluuqa ilaahay u dacwoonaysaa, yaa ka dacwoonaysaa qaaliqiyaa ka dacwoonaysaa wax khalqay allah subxaanahu watacaala. yaa noloshaada caawin kara oo bedeli kara allah subxaanahu watacaala. dadka waxna kuuma beeri karaan, waxna kaama tari karaan. markaa noqotid qof dacwo badan hubaal waa lagu nacaya. waxaa laleeyahay kiyaa soo socdo, tiyaa soo socoto, taleefon haddaa soo wacid halwal alla waxbay raadinaysaa lagu leeyahay. waxaa noqonaysaa qof macruuf oo aad loo hooseysiiyo ayaad noqonaysaa. marka haddaa rabtid inaad heybad lahaatid, jooji dacwada oo weliba danta iyo duruufaha aad ka dacwoonaysid. weligaa ha ka dacwoonin dantaada iyo duruufaha. mar walba oo danta iyo duruufaha aad ka dacwoota aad ka sheekaysid, dadka qaar labay noqonayaan. qaar inay maxay ahayd ay ku farxaan, si ay cadowyo qarsoon ay yihiin ay ku farxaan. qaarna maxay ahayd inay kugu nacaan. labadaas mid ay noqonaysaa. wax ka dhexeeyo haweeraatee mala. xataa qofka ku caawinayo isagoo ku dhibsanayo inuu ku caawiyo ayay u badan tahay. soo marka ilaahay subxaanahu watacaala asaa ku dhahay hadaa wax weydiisanaysid weydiiso. ilaahay markaa weydiista asaga albaabadiisa kuu furaayo, asagaa kuu saqiraayo. arlada waxa ku nool oo dhan asaa kuu soo adeejinaayo, asagaa jid ku tusinaayo oo irsaaqad aad ku heshid. waayo risqigaaga asaa ku dhahay anaa kafaalo qaaday. marka wax bini aadan a isugu dulaysid meesha ma yaalan. risqigaaga ha noqdo mid yariis, ilaaha kuu qadaray. ha noqdo mid weyn, ilaaha kuu qadaray. ha noqdo mid baraka leh, ilaaha kugu talagalay. soo waxaan wax kuu qoran waa inaad bini aadan isku dulaysid meesha ma yaalan. qof walba waxaa waaye waa nool yahay. duruuf walba aad ku sugan tahay waxaa waaye wax waa cuntaa, guri waa haysataa alxamdulilah. haddaa guri haysan ilaahay guriha ku siiya, yani meel aad gashid. muhiimadda baa inaa lahaatid inaa leedahay kulligu wada leeyahay guri oo milkigiisa imaa. laakiin muhiimadda waa in waxaa waaye daash oo kor kaa celinaayo oo saqaf kor kaa celinaayo aad ku hoos jirtid. alxamdulilah inaad tiraahid waa. haddaa caafimaad haysatid waxaa qofka ugu qaalisan, qofka ugu qanisan ayaa tahay dunidii. marka haddaa rabtid inaad heybad lahaatid, kow jooji hadalka badan, jooji qasalka badan oo bilaa macnada ah, jooji baryo badan iyo bukaan badan. waxaa waaye bahdaada kugu nacay. bulshada intaan la gaarin kuwa kula dhasheena ku dhacay. alla tan duruuf badana maalin walba wax un bay sheegtaa. kuwa kugu dhawaa ku dhahaa iska dhaaf dadka kaleenta intaan la gaarin. marka ha baryamin, ha sheegin. dadka qaar waxaa arkaysaa subxaan allah ayagoo waxba aan haysanin in loo maleeyo dad aad u hanti badan in loo maleeyo. waayo qofka wuxuu bartay inuu dhaho alxamdulilah. sirhiisa lama ogo, dadka uma dacwoodo. markaasaa waxaa leeyahay alla hebel hanti uu haystaa, alla hebel suu egyaha arag, alla heblaaya say u egtaha arag, alla heblaaya maasha allah ma ka khasno. dadka ku mashquul, dad waxaa jira dadka ku mashquul sooma. marka mar walba waxaa la dhahaa alxamdulilah. haddii xataa adoo wax haysanin laguu maleeya dad qani ah, nicmo ilaahay ku siiwaa, hibo ilaahay ku siiwaa, malahaas lagu maleynayo. mar walba waxaa lagu duceystaa ilaahayow sida ay noo maleeyaan naga dhig. ku duceysa dad noocaas ka mid tahay, ilaahu sida lay maleynaa iga dhigaa dheheysaa. soo ilaaha kuu saqiraayo malahoodii ilaahay arunkaaga dhigaayo. maalin maalmaha ka mid ah hubaal waxaa noqonaysaa qof qani ah ayaad noqonaysaa. qaninimadana waa noocay badan tahay. nooca ugu weyn waxaa waa inaad iimaankaagii aad haysatid, islaamnimadaadii oo caafimaadna haysatid. caafimaadka wax ka qaalisan oo dunida yaalo haba yaraatee malaha. si walba ood maal adduun u haysataa dad bixisid aadan ku iibsan kareen. marka haddaa aragtid in lagaa heebeysto hadalkaaga mar walba ha yaraado. hadalkaaga hadduu yaryahay sirahaaga lama helaayo, taraaraxaaga waa yaraanaya.
dembigaagan waa yaraanay dembigaaga yaraanay waayo da qofka aamuska badan ma aha qof jecel waxaa la dhahay blaysaan ahayd hebelsaan u ahay ma laga yaabo waa jirdiidayaan dadka qaar jirkooda abdiidaya subxaan allah dadka qaar waxaa ilaaha ilaaliyey wallahi ilaaha ilaaliyey ayagoon sheekh ahayn ayagoon xataa qur-aanka akhrinayn dadka qaar oon ka seenin xataa waxaa laga yaabaa inayn aqoon sida loo akhriyo laakiin ilaahay subxaana watacaala ay ku jiraan ximaayadiis ammaankiis inay ku jiraan oo jirdiidayaan markii dad laga hadlaayo maasha allah hadda dadkaas ka mid tahay waxaa qof waxaa tahay ilaahay ammaanadiis ku jiro ilaahay uu doortay dad waxaa jira ilaahay uu doortay oo arlada kula joogo oo ilaahay subxaana watacaala qalqigiisa ka doortay oo jaceylkiisii oo ilaahay jaceylkiisa uu ku arsaaqaya jiro dadkaasaa kamid dadka jirdiidaya in qof bini aadan la dhaliilo la dhibaateeyo la xanta aaday u necab yihiin markii meel lagu kulmo xataa waxaa arkaysaa markii dad laga sheekeynaya inay dib u gurasho bilaawayaan ay tartiib u siibanayaan ay meel kale tagayaan haddaanay dhihi karin joojiya marka waxaa rajeynaa inaad baratid sida mar walba arrimaha ugu maareyn lahayd aamusnaan iyo deganaan videogan video ku xigitaan kulmi doona waxaa idinkeega tagaaya maasan assalaamu calaykum